محمد سعيد دامي oo ah garabka dhalinyarada ee ururka mucaaradka ee wadani ayaa maanta xuriyadiisii dib u helay sida warkaasi noogu soo diray waryaheena Faisal Yusuf Kacaan oo nooga soo warama magaalada Hargeysa. Dhamee gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani oo muddo 2 bilood ee bar ku xidhnaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ayaa maanta dib u helay xuriyadiisa kadib markii ay sheegeen xisbiga mucaaradka wadani in ay u iibiyeen xariga muddadii lagu xukumay dhamee oo lagu xiray magaalada Hargeysa kadib markii uu ka hadlay bandoogii lagu soo rogay gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo ee Ceelafweyn xukuumadda Soomaaliland si aad uga dhidhiday hadalka ka soo yeeray Maxamed Saciid Dhamee gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee wadani kadib ay xabsiga u taxawday ayaa muddo 2 bilood iyo bar kadib maanta xuriyadiisa dib u helay saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay xariga Maxamed Saciid Dhamee iyo waliba soo doontiisa waxayna yiraahdeen markeedii horeba iska hay dacwad siyaasi ah oo aanu sifo sharciye marka horeba ku xidhnayn oo intii uu xariga uu xidhnaana ay ahayd wax sharciga baalmarsan oo dulmiya waxaan imikana u mahad celinaa Ilaahay marka labaadna waxaan u mahad celinaa garsoorkii sida fiican dacwadiisa ka yeelay walaalkeen Maxamed Saciid Dhamee maanta xuriyadiisa dib u helay arintaasi farxad weyn bay run ahaantii xisbi ahaan iyo shacabka reer Soomaaliland bay tahay waxaan u mahadnaqaynaa garsoorkii waxaan u mahadnaqaynaa taageerayaashii xisbiga maxaan ku dhahdaa arintaasi inta badan garab taagnaa walaalkood waxaan u mahadnaqaynaa looyaradii ayaan u mahadnaqaynaa Maxamed Saciid Dhamee uu soo baxay waxaan rajaynaynaa dadka kale sida Saciid uu dulmiga ugu xidhnaa iyaguna dulmiga ugu xidhan in iyaguna ay xornimadooda helaan gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbiga ballaarada wadani ayaa maanta xoriyadiisa dib u helay Soomaaliland oo dhan bay guul u tahay ilaahna waana kala furtay qoladan kulmiyo waxaanu maaganay ilaahunba ogaa 17 cisho kadib waxaan maanta helay xorriyadeedii asaasiga ahayd markii horena xaqdarrada layga qaaday iyo xarigayga qabaarashada ah oo runtii aan waafaqsanayn sharciga markii la xidhayna aan loo maray sifo sharciya oo waaran laygu xirin oo aan la ilaalin xurmadii guriga hoyga oo ay ciidanka bileysku sameeyeen wax aan u wanaagsanayn sumcadda iyo sharafta Soomaaliland waxaan marka koowaad u mahad celinayaa Ilaahay marka labaadna waxaan u mahad celinayaa xisbiga wadani gudiyo dibadba waxaan ku soo baxay dadaalkii xisbiga iyo dadaalkii ay muujiyeen hoggaanka iyo madaxda xisbigu waxaan runtii mahad weyn u dirayaa iyagana dhammaan ummadda Soomaaliland ee xaq baal taagneed ee xaq darradana ka dhiididay xadug markuu xaq darro yahay ma aha wax dhiba qofka mana aha wax kugu sameynaya adiga niyad jab waxa dareemaysaa kalsooni iyo karti kale oo dheeraad xukuumadda kulmiyana mid uun baan anigu fariin u dirayaa waxaan leeyahay xarigiina waan u adkaysanaynaa idinkuna xorriyad hadalkayaga iyo inaanu soo bandhigno dhaliilihiina daldaloolooyinkiina xamil iyo adeeg u yeesha waxaan iyagana u mahad celinayaa hay'adaha caalamiga ah insaanka ee Amnesty International iyo hay'adaha maxalliga ah ee Soomaaliland insaankuga waxaan kala iyagana u mahad celinayaa markii koowaad guddiga insaanka qaran oo door shariif qaatay warbixin shiris oo aan Soomaaliland hore u soo saaray kaalintii aynu doonaynaa waa taa Soomaaliland waa dal dimuqraadi xeerka la igu xukumay ee leedaba wadana wuxuu ahaa xeerka ciqaabta guud oo 62kii soo baxay nolosha casriga lama jaan qaadayo nolosha casriga ee dimuqraadiga ee codka ay istoorashada ay Soomaaliland maanta ku joogto ma ku taabaqaadayo waxaan idin ka warrami doonaa xog badan oo xabsiga iyo wixii aan maaragtay hadii Soomaaliland cadaalad sinaan midnimo iyo nabadgelyo ku socoto maynu iska waraysan doonaa waxaan iyagana u mahadnaqayaa oo aanan ilaawi karin ciidanka asluubta oo ciidan ah magacooga iyo shaqadooda Ilaahay is waafajiyay oo 17 ka cishaan xidhnaana si sharaf leh raganimo leh dhexdhexaadnimo leh ila macaamilay maxaabiista kale ee xabsiga ku jirta oo la macaamila waxay noo ogolaadeen ehelkayga looyaradayada asxaabtayada iyo xisbigayga inay soo booqdaan Faisal Yusuf Kacaan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.